الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka salaamayaa dadka muslimiinta guud ahaan, gaar ahaan dadka Soomaalida ah, kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda joogaba. Waxaynu ogsoonahay dadkeenu waa wax Ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu mahadiyo, iyagana Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo. waxa ay maanta ka qayb qaataan kor u qaadista Ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa, faafinteeda iyo dadka u baahan ee aqoon darradu ay ka hayso in la baro. waxay dhiseen maraakiis badan oo diinta lagu barto, masaajido iyo goobo kale fara badan oo khayr ka socdo. Ilaahay ha ka aqbalo, kana abaal mariyo. waxay ku timi arrintaasi iskaashi iyo wax la isku dardaray, iyadoo loo hoggaansamay hadalka Ilaahay oo tacaawanu cala albirri wattaqwa wala tacaawanu cala alithmi walcudwaan. wixii la isku dardaray wax fara badan oo khayr ayay tareen. waxay dhiseen masaajido dabaqyo badan ah, maraakiis, madaaris iyo goobo kale oo aqoonta lagu barto. masaajida maanta magaalooyinka khayr badan baa ka jira, in fara badan buu cilmigu ka socdaa masaajidada, jaamacadaha, macaahidda, madaarista iyo maraakistaba. hase ahaatee waxaa baahi diineed oo daran ay ka jirtaa dhulka miyiyada, oo in fara badanna meelo ka mid aanu soo maray, indhahayagaanu kusoo aragnay. dad badan oo miyiga joogaa waxay u nool yihiin sidii ay kusoo dhasheen, waayo cilmigu wuxuu ku yimaadaa barasho. qofna cilmiga intuu seexdo kuma soo tooso. dad fara badan ayaan weligood maqal wax u sheega xaqa Ilaahay uu ku leeyahay, cid u sharaxda rasuulka calayhi salaatu wasalaam, cid quraan u dhigta, cid barta tiirarka islaamka iyo tiirarka iimaanka iyo waajibaadka iyo xuquuqda kale ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku leeyahay. in badan oo ka mid ah dadka jooga miyada waxa ay jahli kaga sugan yihiin iyo mooganaan asaasiyaadkii diinteena ay waajib ahayd qof waliba inuu aqoon u yeesho. dadka dhammaanteenba xil baa inaga saaran, culimada, dadka dacwadda ka shaqeeya, dadka xoolaha haysta iyo qof kastoo muslima guud ahaan xil ayaa inaga saaran. xilkeena si yaroo fudud baynu u gudan karnaa. waxaa maanta jira dad fara badan oo iyagu heelan dadka in diinta la baro, khayrka iyo wanaagga iyo nicmada Ilaahay noo soo dejiyeyna la gaadhsiiyo. iyagu xoolo uma hayaan, laakiin waxay hayaan xoogooda, ay hayaan iyo aqoontooda iyo dadaalkooda, iyagoo Ilaahay kaashanaya. waxaynu u baahanay dhinaca kalena in la helo dad wixii arrintaasi xoolo ay u baahato ku dara, oo maalkooda ku jihaada, oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa kor ugu qaada, oo dadku inay bartaan sabab u noqda, oo waqfi iyo sadaqa jaariya samaysta, khayrkeedu u socdo iyagoo dhintay oo xabaalahooda jiifa. waxaa ka mid a goobaha loogu talagalay in loo diyaariyo in dadka miyada dacwadda laga gaadhsiiyo khayrka, oo laga soo saaro macallimiintii tegi lahayd miyada inta laga soo kaxeeyo dhalinyar, halkaa lagu xareeyo, laga dhigo xer Ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa barata. marka iyagu bartaana dib loogu celiyo dhulka miyada aynu sheegnay. abaar diineed iyo aqoon darro, dadku diintoodii aanay aqoon u lahayn ay aada ugu baahsan tahay. markaska la dhahdo markasul ixsaan oo ku yaala waqooyiga magaalada Hargeysa, dad baa bixiyey dhulkoodii qayb ka mida ku tabarucay, Ilaahay daraaddi ugu tabarucay. dad ahlu khayrina masaajid bay ka dhiseen iyo 3 fasal. meeshaasi waxaa loo qorsheeyey oo loogu talagalay oo dad dhalinyaro ah, oo dadka dacwadda iyo khayra ka shaqeeya ah, oo aqoon aan u leeyahay, oon ku kalsoonahay, oo lagu aamini karo hawsha noocaas ay ugu talagaleen inay ka sameeyaan markas boodhan ah, oo dadka wax lacag aan laga qaadahayn, oo dadka loo suurtogeliyo inay wax ku bartaan si bilaasha, meesha seexdaan, cuntadana ay ka helaan. hadda waxaynu u baahannahay marxaladii koowaad masaajidka 3 fasal iyo dhulka intaa dad ahlu khayra baa la baxay. marxaladii labaad ee suurtogelin lahayd in meesha arday lagu soo xareeyay miyada laga keenay, oo Ilaahay daraaddi diinta inta loo baro, kadibna lagu celiyo dhulka aynu tilmaanay jahliga baahsan ee ka jira. marxaladda labaad waxay u baahan tahay meeshu maadaama ay tahay meel magaalada ka baxsan oo miyi xisaabsan, in dhulka dayr lagu xidho. waxaa kale u baahan tahay in laga dhiso 2 hool oo ay seexdaan ardayda boodhan ahaan meesha ugu jiraya,
iyo in lagu kordhiyo ugu yaraan 3 fasal hadda ku yaala 2 fasal oo kale in lagu kordhiyo saas oo kale 5 musqulood ama suuli in laga dhiso madbakh in loo sameeyo meel store oo raashinka loo dhigo marxaladda labaadna waxa lagu qiimeeyay lacag gaaraysa markii halka ugu hooseysa laga qabtay $50,000 marka waxaan ugu baaqayaa dadka ahlu khayrka baaqiyo badan oo kan hortii aan u jeedinay ka soo jawaabay oo qof waliba intii awoodiisu ahayd ama markaasi uu go'aansaday inuu bixiyo ku darsaday kadibna noqotay mashruuc khayriya oo muuqda inay kanna sidii kuwii hore kale uga soo qayb qaataan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala maalka iyo nafahooda iyo awlaadoodaba ugu barakayn doona innaga waqfiga u baahan sadaqada inagoo dhimanay ajarkeedu inoo soconayo waalidkeena nool iyo kuwa dhintay ayaa u baahan ilaahay baa inoogu barakeynaya waxaynu hayno وما نقصت صدقة من مال بوري النبي عليه الصلاة والسلام صدقة مالك وحبا كما دينتو waxa kale oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoogu bedelaya waxaanu bixino wax ka khayr badan malaa'igta inoo ducaynaysa rasuulku wuxuu yiri maalin kasta waagu uu bariyo laba malag baa yimaada mid uu ducaynaya midna uu habaartamaya ka ducaynaya wuxuu leeyahay allahumma a'ti munfiqan khalafa ilaahu ka xoolihiisii bixiyay waxaad ugu bedeshaa wax ka khayr badan oo meeshii u buuxiya khayrka wanaagga laga qayb qaato ilaahay idin barakeeyo shaashaday ka muuqan doonaan nabarada iyo dahabka iyo saadka ee mashruucaasi wax loogu dirayo gacan aamina ayaanu ku jiraa oo ilaahay daraadi u wado iyagu waxay ku daraan mooyaane aan iyagu dan gaaro haba yaraatay ay ka leeyihiin aan jirin ilaahay noo aqbalo ilaahayna inoo suurtageliyo waanu suurtagelayaa ee qof walba khayrka iyo wanaagga ka qayb qaado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته